بسم الله الرحمن الرحيم عشركان ugu hore waxaan ka bilaabi doonaa sidee loo sameeyaa ASP.NET web application sidee loo sameeyaa ASP.NET web application si aad u sameyso waxaad imaanaysaa file markuu hore Visual Studio ga soo kicinaysa xagee computerkaaga start menu-giisa waxa ka raadsaa Visual Studio ani hadda waxaan isticmaalayaa 2019 haddii aad 13 isticmaalayso haddaad 15 isticmaalayso iyo haddaad 12 isticmaalayso ha isticmaalin wax ka hooseeya 13 si ani ay la socoto wax ka hooseeya 13 ha isticmaalin mar alla markaas oran gareyso environment noocan oo kala imaanaya kadib waxaad dooranaysaa file waxaan leenahay new kadibna waxaad ka dooranaysaa project waxaa lagu siin doonaa template oo aad ka samayn doonto haddii aad 13 iyo 15 isticmaalayso 19 ka xoogaa yar oo ka duwan yahay laakiin wax weyn oo duwanaansha oo aad weyn ma wax ka duwanaansha oo aad weyn meesha kuma jiraan sidaas daraadeed waxaan dooranaynaa meeshaan ka raadi ASP.NET ama waxaa soo furtaa luqadda arabta inaad isticmaasho sometimes Visual C# qaybta dambe ku isticmaali doonaa maadaama hal solution aan haysano labadooda waa isku darsan doonaa Visual Basic ka dooro kadibna meeshaan waxaan ka dooranaynaa wax loo yaqaan ASP.NET web application kadib waxaan leenahay next marka next dhahdo waxaa lagu siin doonaa projectigaaga magaca u baxsanayd anaga hadda waxaan baxsanaynaa online bank kadib meesha aad dhigi lahayd dooro default meesha ay yaalo waxaa iska hubisaa solution-kan inuu ku samaysan yahay kadibna waxaan leenahay next 15 iyo 30 si loogu sameeyo waa istusin doonaa ayadana laakiin more difference aduna kabacdi waxaa lagu samayn doonaa templates fara badan lagu siin doonaa anaga waxaan rabnaa website-kan inuu ka soo bilaabo from beginning inuu noogu soo bilaabo from scratch web form iyo MVC waxaan sharaxi doonaa oo wax ka sheegi doonaa qaybaheena dambe MVC waxay u taagan tahay model view controller waxaa loogu talagalay waxaad inay ku kala nidaamsadaan qayb models qaybta database loogu talagalay views presentation and UI components controller user interaction and flow control it means separation of concern web API iyo single page na ayadana xoogaa yar ka sharaxi doonaa laakiin waxaan u socnaa maxay empty project it means empty website from the beginning inaan waxaan anaga qorno ilaa dhamaad aan sameeyno kadib waxaan leenahay create waxaa lagu sameyn doonaa application ugu horeeya ama website ugu horeeya oo ASP.NET laakiin wax data kuma jirto wax form ma lahan wax website ma shaqeynayo wax website ma shaqeynayo waxaan ku hormari doonaa sida loo install gareeyo bootstrap sida loo install gareeyo bootstrap xoogaa qadka xoogaa naga culus laakiin files new kit package manager console xoogaa yar uu soo daahaya waayahay waana la abuuray website-keena waa noola sameeyey online bank yaa loo yaqaan laakiin ma lahan wax content wax information kuma jiro markaa maadaama wax information ku jirin wuxuu haystaa saddex shay oo aad muhiim ah waxaa loo yaqaanaa solution explorer properties iyo wax loo yaqaan toolbox mid walba ay shaqo gooni ah qabataa mid walba ay shaqo gooni ah ay qabataa waxaan inoo ku hormari doonaa meel loo yaqaan solution explorer kaas waa meesha ii qaadi leh dhammaan website-kayga faylash uu ka kooban yahay oo dhan meeshaan dhigi lahayn waxaa loo yaqaanaa solution explorer dhinaca midigta ay ku taala isla property ayla isla meeshaas ku taala markuu hore waa auto hide ayadu way ka qarsan tahay inay caadi ku tahay waa laga yaabaa property-gan project-gaaga astaamaha uu yeelan lahay background color-kiisa iyo waxyaabaha meesha ka sad garan leedahay loo yaqaan controls ku isticmaalayo web controls sida buttons-ka iyo labels-ka iyo textbooks-ka iyo tables-ka meesha aan ka sad garan lahay waa saddex toolbox waa meesha ay yeeleen dhammaan controls-ka loo baahan yahay in la isticmaalo maxaa kamid ah button-ki iyo labels-ki meesha ay yeeleen maxaa loo yaqaanaa toolbox loo yaqaanaa solution explorer-kana ku hormarno maraba inaan kuwan ku dheeraano reference-gan iyo back web.configuration-kan kana ugu muhiimsan website-kaaga meesha uu ka nool yahay falkan web.config loo yaqaan haddii website-kaaga laga saaro ma shaqeyn doono website-kaaga problem wuxuu ka kooban yahay luqad loo yaqaan extended markup language dhammaan configurations-ka website-kaaga uu yeelan doono meesha ay ku jiraan maxaa loo yaqaanaa web.config loo yaqaanaa web.configuration loo yaqaanaa haddii project-kaaga laga saaro file-kaas inta kale waxay noqon doonaan kuwa aan shaqeyn maxaa kamid ah connection-ka project-kaaga kamid ah
haddii aad soo gashatay reference cusub meesha uu imaan lahaa dhammaan packages uu ka kooban yahay meesha ay ku jiraan waxaa loo yaqaanaa web.configuration loo yaqaanaa extended markup language loo yaqaanaa XML waayahay that's sida loo sameeyo ASP.NET project adigoo isticmaalaya Visual Studio 2019 haddii aan isticmaalayo ka waran 2015 ama 13 xoogaa yar ay ka duwan tahay qaybahan dambaan ku samayn doonaa hadduu ilaaha waayahay waxaan rabnaa inaan kusoo darsano one projectigeena hal formkaasna kadib aan isticmaalno formkaasna kadib aan ran gareyno waxaan leenahay projectigaaga solutionkiisa markaa imaato laba qayb waaye solution iyo project name right click aan leenahay kadibna waxaan leenahay add marka ugu horeysa waxaan kusoo darsanaynaa web form waa maxay page ugu horeeya add haddii aad dhahdo meeshan waxaa ku haystaa wax loo yaqaano web form haddii aad CSS rabto style sheet haddii aad JavaScript rabto JavaScript file haddii aad HTML page rabto HTML page haddii aad folder rabto waa kana haddii aad data iyo wax la mid rabto new item aan leedahay faylka rabto meesha ka doonaysa annaga hadda waxaan u baahanahay new item master page maadaama aan project samayn rabo projectiga aan sameynayo qayb uu kala leeyahay soo ma maadaama qayb uu kala leeyahay waxaan rabaa qayb kasta inay yeelato wax ayada gooni u ah qayb kasta inay yeelato wax ayada gooni u ah u baahanahay wax ayada gooni u ah sidaas daraadeed waxaan qasab ku ah inaad sameyso projectiga qaybtiisa ugu weyn waxaan leenahay new item waxaan kusoo darsanaynaa master pagekaas template waaye projectigaagu ay raaci doonaan waxyaaba ku kuman tusaalaan headerkayga iyo footerkayga hal nooc inay ahaadaan rabaa qaybta dhexena ay isbedesho marwalba sida caadiga website kasta waa sooma maadaama aan saas ku lubaanahay master pagekayga waxaan u samaysan doonaa header iyo footer fixed ah oo aan isbedelaynin qaybta dhexena ha isbedesho content yaa loo yaqaanaa ama content placeholder waxaa search garaynaa wax loo yaqaano master haddii aad gudaha usoo gasho mar dhammaantood way ka wada sameyn yihiin ama 13 isticmaal ama 15 isticmaal ama 19 isticmaal master page marka raayso waxaan u baahanahay web form master page web form wuxuu qaataa wax loo yaqaano site master page extensionkiisa .master waa haddii aad arkayso .html haddii aad arkayso .php hadda waxaa arki doontaa .master waxaan u baxsanaynaa admin means the admin master page sida qofka account-ka diiwaan gelinayo customer-ka diiwaan gelinayo something like this u baahnaa before inta sameyn laakiin waxaan sameynaynaa folder aan dhex gelina asaga hal folder waxaan leenahay folderkan waxaan u baxsanaynaa admin folder isla folderkaas waxaan dhex gashanaynaa projectigeena ugu horeeya pagekeena koowaad waxaan leenahay new item kadibna waxaan leenahay web form master page this is our master page keena waxaan u baxsanaynaa admin master page admin.master extension faraaq qaad inta kale u bedel waxaa lagu abuuri doonaa master page-kaaga oo leh faylasha HTML aad taqaano caadiga ah this is my way calaamadan add directive haddii aad calaamadaas add directive aragto waa ASP.NET web application wuxuu leeyahay language luqadda uu isticmaali doono waxaa loo yaqaanaa VB wuxuu leeyahay wax loo yaqaan code behind file file ka duwan oo samaysan doonaa .master mid ka duwan oo la sii raacinayo .vb hadduu sii shaab yahana .cs aan raacin doonaa intaan kale waa HTML-ka caadiga oo aan aqaanay standardka wax isbedela uma baahna waxaan iska saaraynaa content placeholder-ka qaybta header-ka noogu jira website-kaaga waxaa u samaystaa title waxaan leenahay bank system the title of the website meeshan waxaa loo yaqaanaa source code waxay leedahay design code oo aad ka bedeli karto wax walba waxay leedahay split design plus code ayadoo isla socda haddii aan meeshaan imaado designkina waa kan codekina waa kan waayay anaga most of them sourcigaan isticmaali doonaa content placeholder-kan waxaa loogu talagalay website-kaaga waxyaabaha uu qaadi lahaay oo dhan inta markii la joogo marka website-kan haddaan usoo laabano qaybtan bootstrap-ka waxaa la isticmaalayaa aan dhahnay sorry qadka aad u culus yahay baaba waay never mind file loo baahan yahay jiro bootstrap haddaad soo degsato iyo haddii kaleba haddii aad rabto inaad soo degsato waxaa laga soo degsataa NuGet package manager function
meel loo yaqaano NuGet Package Manager Console wuxuu ku siin doonaa NuGet Package waxaad imaanaysaa view kadibna waxaad dooranaysaa other window kadibna waxaad ka dooranaysaa Package Manager Console ama waxaad imaanaysaa extension and updates haddii aysan kugu jirin meeshaan waxaad imaan doontaa tools waxaa kugu jirta extension and NuGet Package Manager Console kadibna waxaad ka dooranaysaa Package Manager Console Package Manager Console kan inta waxaa ku qoran doontaa waxa arag tusaale ahaan install Bootstrap MB 4.0.1 version ka rabtaa ku install garanaysaa laakiin waa inaan internet haystaa now internet ma hayo laakiin faylashii caadi ah noo soo dejiyaan ma hayo ayagaan isticmaalayna waxay soo geli doonaan meeshan faylash Bootstrap ka aan soo qaadano something like waxaan imaanaynaa one project inoo samaysan oo kale ay noo distribution yihiin waxaan haysanaa contents the Bootstrap file sidoo kale waxaan haysanaa script for JavaScript waxyaabo data noo diraayo dhan iyo font awesome saddexdoodaas aan soo qaadanayna waa soo koobiyeenayna right click control C waxaad imaanaysaa isla meeshan projectigaaga dhexdiisa right click aan leedahay kadibna waxaan ku leenahay paste haddii aad sidan aan sheegay u install garayso isla meeshan un bay soo geli doonaan ayagoo magacaan wata ayay ku soo geli doonaan waxaa lii soo geliyay the contents oo ay ku jiraan CSS files sidoo kale waxaa lii soo geliyay script oo ay ku jirto JavaScript files sidoo kale waxaan haysanaa font awesome intaas markaa haysto kadib waa projectiga ku soo darsan karaa sidee loogu soo darsadaa wax weyn maaha waxaan u baahanahay lagu dhahay marka ugu horeysa Bootstrap filashaada inaad soo qaadato Bootstrapka waxa ugu horeeya bootstrap.min.css asaga oo kaliya u baahan drag and drop in the title bar qaybta title ka soo gashan doontaa sida CSS HTML loogu xiro waan aqaan Soomaa qofka HTML soo qaatay uu yaqaan qaybta badiga aan waxaan rabnaa inaan soo gashano JavaScript filasheena dhan meeqa file aan u baahanahay waxaan u baahanahay jQuery file sidoo kale waxaan u baahanahay proper waxaan u baahanahay Bootstrap intaas aan u baahanahay kaliya qaybta scriptiga imaanayna waxaan soo qaadanaynaa jQuery slim.min.js .minifest loo yaqaanaa .cs na labadooda isku mid waaye waxaa wada isticmaal mid kamid isticmaal .min iyo .min.js ama .min.cs ama .cs bas arki doontaa labadooda mid kamid isticmaal wada isticmaaleen inta maxaa ku haysanaa .min slim.js intana slim.min.js sooma labadooda mid ka doontaa isticmaali kartaa sidoo kale waxaan u baahanahay proper.min.js sidoo kale waxaan u baahanahay bootstrap.min.js faylashas markaan kadib projectigaaga waxaad isticmaali kartaa dhammaan contents uu lahaa Bootstrapkaaga ku install garaysan yahay I don't know internetka wax nooga dhacay Bootstrapkaaga hadda ku install garaysan faylash loo baahnaa waa ku shubatay computerkaaga kasta it means ko waxaan ku shubanay faylka kuwaad loo yaqaan bootstrap.min xageen dhiganay waxaa ku baastirada linkigan qaybta head sectionka saddexda kalena xageen dhiganay in the body section xageen dhiganay the body section dhiganay oo ku install garaysan yahay kadibna waxaa soo qaadataa example kamid exampleska dhamaantood maadaama aan u baahnayn waxaan u baahanahay viewports canvas labadana soo qaadanayna copy and control C xageen dhiganaynaa the head section qaybta headka ayaan dhiganaynaa maxaa loo yaqaanaa projectigaaga waxaa rabtaa inuu responsive noqdo responsive soo ku noqon karaa wuxuu ku noqon karaa responsive it means mobile devices in loo isticmaali karo iPad devices in loo isticmaali karo iyo PCs intaba loo isticmaali karo responsive website-kaaga haddii la yareeyo iyo haddii la weynayo intaba inuu qaato maxay ogolaanay viewport yaa loo yaqaanaa widthkiisa wuxuu noqon doonaa scale-kiisa number 1 shrink to fit waxaa lagu fit gareeyo yaan loo fiirin device wax device yaan loo fiirin wax device yaan loo fiirinin waayahay intaas markaa haysan kadib waxaan u baahanahay inaan soo page-kan aan ran gareyno sidoo noqonayo si aan warino page-kan ma ran gareysmaayo maadaama uu page uusan ahayn waxaa ran gareysmaayo oo kaliya ASP marka la joogo